isagoo la hadlayay ciidamadii xureeyay dhul ballaaran oo xeebta ku teedsan ee ku jira difaaca deegaanka Dhanaane ee gobolka Shabeellada Hoose ayuu soo hadal qaaday dil dhawaan ka dhacay deegaanka uu geystay mid ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna uga digay ciidamada inay ku kaftamaan qoriga ha ku taagin walaalka qoray hana kula kaftamin kan hub waaye qoro waaye daba ka dhacayo cadawga loogu talagalay in loo adeegsada qofkan waa walaalka ina kaashato oo heshata oo cadawga kala hortagtaa markay dhibaato gaartana aad garabkaaga ku ximbaartaa loogu talagalay isma leh isku keen adiga markii ma yeelayno mana qaadanayno in uu qof walaalkiis gacantiisa ku dilaa kadibna oo la dhaha waa la cayaarayo waa la kaftamay inuu dhaha ogaada qofkii dab ku kaftama dab lagu la kaftama asagana warkaas ma cad yahay mas'uuliyiinta maxkamadda ayaa sidoo kale ballan qaaday inay jiri doonto maxkamad ku helin doonto fadhiyada ciidamada sidoo kalena qaadi doonto dambiyada ay galaan kuwa isku ekaysiya ciidamada ee dhaca ka geysta gobolka taasi oo meesha ka saaraysa in waqtiga dadaal ay ku bixiso dawladda sidii Muqdisho loogu maxkamadeyn lahaa waa kan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute oo arrimahaasi ka hadlaya sameeynayna annaga maxkamad ahaan waxaan ballan qaadaynaa dadka dambiyada noocaas gal oo lagu soo qabto iyagoo isbaaro gobolkan dhiganayo in ay ciqaabta ay mudahiin ku mutaan goobta lagu qabto oo aanan magaaladii Muqdisho loo qaadin oo halkan lagu maxkamadeeyo oo halkan ay shaqadiisa ku dhamaato oo aanan la wareerino dawladda oo shidaal ilisiin ka bixin halkaas loo rarinba sare guuta Liibaan Cali Yaro gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa isna u sheegay dhammaan ciidamada in dambiga ka dhalan kara hidhaca dadka iyo dhibaatayntiisa uu gaari karo dil toogasho ah maxaa jira askarigii asoo furun taagan oo dagaalamayo isbaarad dhigto shariicada islaamka wixii ku qabto waa la ogyahay inama jazaa'u alladheena yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan kuwa aan la dagaalamin la mid naqana asoo xukunkiisu wuxuu naqana in la toogto naqana intii ay joogeen ayay sidoo kale mas'uuliyiinta soo hadal qaadeen amar diidada ciidamada dhexdooda ah fasax aan ka warheynin taliyaha ururka waxa uu faray inaysan ka soo bixin fariisimaha iyagoo aan fasax ka haysan talisadooda sidoo kalena ogeysiin xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.